waxa ay ku dhalatay naafada indhala'aanta balse taasi ma aanay ka hor istaagin in magaceedu qaaradaha iskaga gudbo iyadoo loo bartay si aan caadi ahayn kadib markii ay faalkeeda ku rogtay kuna sheegtay dhacdooyin waaweyn oo dunida soo maray sida in ay saadaalisay qaraxii ku dhuftay daarihii mataanaha ahaa ee New York America. dhanka kale furfurkii iyo burburkii ku yimid dowladdii baaxadda iyo awoodda badnayd ee midowgii Soofiyeedka. Vangelia Bandeva Kashtrova faaliyadii adduunyada ka yaabsatay. Vangelia waxay caan ku ahayd magaca Baba Vanga ama Ayeye Vanga. waxa ay dhalatay iyadoo indhala sanadii 1911 ayayna ku dhalatay magaalada Istrovaga balse waxa ay haysatay jinsiyadda waddanka Bulgaria kadib markii ay u hayaantay dalkaasi dhamaadkii dirirtii koowaad ee adduunyada. waxay intii ay yarayd la soo banbaxday mucjisooyin ku dhisnaa saadaalina qaarkood ay run isku bedeleen waxayna dunida reer galbeedka iyo qaaradii ay ka tirsanayd ee reer Yurub looga aqoonsaday in shakhsiyadani magaceeda madaxafyada la dhigo marka ay dhimato kadib. waxyaabihii intii ay nooleed magaceeda kor u qaaday waxaa ka mid ahaa saadaashii la yaabka lahayd markii ay ka warrantay inuu dhici doono qarax musiibo ah iyadoona markaasi la joogay sanadkii 1980 6 sano kadib waxaa dhacay mashaqadii qaraxii Chernobyl 1986. dhacdooyinkii ka dhigay inay dad badani rumaystaan faalalo wadani magaceedana ku qoray buugaag badan oo taariikhda ah kuwaasi oo dunida ay kaga yaabsatay waxay ahayd kadib markii ay horay u socdaalisay burbur iyo kala daadasho ku imaan doona dowladda xoogga weyn ee midowga Soofiyeeti. taasina waxa ay dhacday saadaashaasna imaatay sanadkii 1991 markii gebi ahaanba midowgii Soofiyeeti la waayay. maxaa kaloo Baba Vanga faalkeeda ay ku rogtay waxa ay tilmaamtay kana sheekaysay in talada dalka Mareykanka uu ku soo dhawaan doono nin diirkiisu madow yahay waxaana warkaasi uu dhaboobay sanadkii 2008 xilligaasi oo madaxweyne Obama uu la wareegay talada Ameerikaanka midoobay. Vanga intii ay nooleed waxa ay kaloo carabka ku dhufatay inuu dhici doono burbur ku imaan doono hogaamiyaasha iyo dowladaha Carbeed iyadoona sanadka iyo waqtigaba sii sheegtay xilli dambana uu qabsoomay wixii loo aqoon jiray gugii Carabta. saadaashaasi oo Vanga mar kale magaceeda cirka ku shareertay. waqti kale Vanga waxa ay sheegtay in daara dhaadheer oo ku yaala dalka Mareykanka ay gali doonaan 2 diyaaradood xaqiiqdiina waa ay dhacday musiibadaasi 5 sano kadib geerida Vanga. waxay sii sheegtay inuu imaan doono xanuun safmareena oo adduunyada isaga kala gudbi doona qaarad ilaa qaarad waliba uu ku dhici doono madaxda Mareykanka waxaana dhawaan loo aqoonsaday inuu xanuunkaasi yahay COVID-19 kii ay ka warratay Vanga. sanadka 2035 waxa ay Baba Vanga ku sheegtay inay cirifyada dunidu dhalaal uu soo wajihi doono dhul iyo magaalooyin ay qarqoomi doonaan. waqti dambe oo 2170 rallada waxaa soo wajihi doona ayay tiri qalayl daran. Baba Vanga waxay ugu dambeyntii geeriyootay sanadkii 1996. haddaba daawada adigu maxaa ka aaminsan tahay Baba Vangelia Bandeva Kashtrova faalalo wadda adduunyada ka yaab